صاحبي haddii alla idmo waxaan caawa eegi doonaa qaabka aad u diyaarin kartaan imtixaanaadkiina qaab professional ah. Waxaan baran doonaa the best way qaabka ugu wanaagsan ee macalinku u diyaarin karo imtixaanaadkiisa qaab professional ah. Haddii alla idmo waxaan practice ku samayn doonaa practicalayn doonaa qaabka warqadan shaashada saaran aad u diyaarin kartid. Haddii alla idmo mawduucan waxaa naga soo codsaday macallimiin badan oo u diyaara in la fahansiiyo qaabka uu macalinku u diyaarin karo imtixaankiisa professionalka ah. Weliba qaab waxaa la rabaa macalinku u diyaarin karo laba section inuu diyaariyo sida su-aalahan ay isku horyaalaan goobogelidii iyo su-aalihii directiga ah. Isagoo hal warqad ku diyaarin kara intii section ugu baahan yahay section 1 iyo section 2 iyo section 3. Haddii alla idmo waxaan kasoo bilaabi doonaa from scratch baan kasoo bilaabi doonaa. imtixaankan waa imtixaan yar oo monthly oo shahriya iskuulka secondary-ga ayaa qaaday. waa maadada technology-ga ama ICT-ga. hal chapter ayuu ka kooban yahay oo su-aalahan ka yimaado. haddii alla idmo waxaan soo saari doonaa warqad cusub oo pro ah islamarkaana aan ku baraskarayn doono soo dhawo sax. okay, haddii alla idmo waxaan geyn doonaa geeskan warqadaydaan geyn doonaa. halkan waxaan kula soo bixi doonaa new document waan kala soo bixi doonaa warqad cusub. warqad weyn weeye. waxaan u bixin doonaa exam baan u bixin doonaa. exam technology waan u bixin doonaa. exam technology fasalku waa form 1 weeye oo fasalka koowaad. haddii alla idmo warqadan qaabka markaan dhameyno aan qaabka u diyaarino waxaan rajeynayaa in hadda kadib imtixaanaadkaaga u diyaarsan doonto qaab professional ah. habkii horena aad iska dayn doonto. sidoo kale lesson-kan wuxuu ku saabsan yahay sida waraqaha dokumentiyada aad ugu diyaarin karto barnaamijka weerka adigoo qaab professional u diyaarin doono. okay, haddii alla idmo stepka koowaad waxaan ka bilaabi doonaa inaan page layout-ka warqada aan fadhiisino. waxaan tegi doonaa tabka ama menuga page layout. okay, margin-ka oo kale waxaan ka dhigi doonaa narrow baan ka dhigi doonaa si mataqaanaa bahashan ila xagga u tagto. marka hore normally bay ahayd. okay, halkan ay joogtaa baasheer pointiga loo yaqaano. kadib waxaan ka dhigi doonaa narrow baan ka dhigi doonaa. size-ka warqada waxaan ka dhigi doonaa A4 baan ka dhigaynaa. okay, page orientation-ka waxaan ka dhigaynaa portrait baan ka dhigaynaa. okay, column-ka meesha ugu muhiimsan waa meeshan si imtixaankan uu noqdo 2 section isag yaala oo waraaqdaada ay u koobnaato. waxaan ka dhigaynaa hadda 1 column weeye waa 1 column 2 column baan ka dhigi doonaa haddii alla idmo. okay, waxaan bilaabi doonaa su-aalahan bilaabi doonaa. su-aalaha qeybta koowaad sectionka koowaad waa su-aalo la dooranayo ardaygu uu jawaabta saxda goobo gelinayo. okay, waxaan samayn doonaa waxaan soo koobi garaysan doonaa. okay, intaan soo koobi garaysan homekaan tegayaa. okay, tusaale kale xagga farta fontiga waxaan ka dhigayaa farta loo yaqaano Times New Roman baan ka dhigayaa. okay, waxaan ka yaro dhigayaa size-keeda 12 oo kale ayaan ka dhigayaa. okay, numbers ayaan ku bilaabayaa. numberka koowaad ayaan soo gashanayaa numberka koowaad. okay, oo yaro jiidaya xaggaan geenayaa. then su-aasha koowaad baan ku bilaabayaa. okay, waxaan sameynayaa xoogaan soo yaro degayaa si halkaa hadhow ciwaanka ayaan iyo wixii looga aad xagga sare u geliso. okay, hoos baan soo yaro degayaa. su-aal number 1 baan iskaga qoranayaa halkaas. okay, xaggaan u yaro jiidayaa. okay, xaggan waxaan ku qorayaa ciwaanka. xagga ciwaanka waxaan ka dhigayaa far kalaan ka dhigayaa. waxaan ka dhigayaa farta loo yaqaano Arial Black oo ciwaanada loogu talagalay. waxaan dhahayaa section 1 ama waan iska soo koobi garaysanayaa haddaan doono si videoga ugu koobnaado. koobi ayaan leeyahay. okay, intaas ka soo koobi garaysanayaa Control C then waxaan leeyahay Control V. okay, intaa markaan soo koobi garaysto waxaan ku bilaabayaa su-aasha koowaad first question baan ku bilaabayaa. su-aasha koowaad waxay leedahay qaabkan ayuu taallaa. su-aasha koowaad ee maadada imtixaankeedu Control V baan la iska soo koobi garaysanayaa. okay, halkaa marka uu number noqdo tab baan ku galaynaa ama tab baan ku galaynaa. so okay, waxaan sameynaynaa xaggan aan tegaynaa enter baan leenahay. dabeetana sidan ABC-da iyo waxyaabaha u qoran tab baan ku galaynaa. tab baan ku samayn doonaa ABC-da iyo waxyaabahaas. then okay, waan iska soo koobi garaysanaynaa. copy and paste ma isticmaalaynaa si waqtigaan u ilaalino. Control C
muhiimaddu waxa weeye qaabka aad imtixaankan u diyaarin karto control v baan leenahay. Okay, marka xagga tago uu ii noqdo shift iyo tab baa la qabanana so new number noogu bilaabo waa shift iyo tab. So control C haddaan ku celiyo shift iyo tab baan isla qabanayaa, keyboardka waxaan isla qabanayaa shift iyo tab baan isla qabanayaa. So abcd markaan sameynayo waa tab, markaan new number sameynayo waa shift iyo tab. haddii aan doonayo inaan abc sameeyo waa tab baan leeyahay, haddaan doonayo inaan ka noqdona shift iyo tab. Okay, su-aasha labaad laftigeeda iska soo kordhigaysanaynaa. su-aasha labaad laftigeeda control C baan leenahay. Okay.